وهلجن أي وليه هدايا دقن وهلجن أي ولجود كوجا من أيام ومدة الصوماليات جارهان أنا بوحن كم ده هاي ذاتك أي صوب برباري سي فاطمة عمر حاشي وأنا قديجة دليل قبل ديس وروح ضبطناي قشة قلها حسب جهة بداية كعنك الصوماليات قبل دي نقطة قداميه وركها وين كمدة كعنك قبل دي نقطة هاليد وين أو إلا يهدأ تاجن سبب بحنت حقوق الإنسان كالدونك أو كشقين إنسان إن هايو يعنق صوماليات أما هايو يعنق الدوينها كترسن أي سندباتونين قبل ده تاجن إلا يهدأ تاني ده هذه ورطة قضية مركز قيس كاس كنتي عن كتر ما مكرين هيرو أما جسيال أي كسر جدا وأنا تنكنتي إن أي نقطة وسير عند علم أنت أي ماشهاي إلهي إذا كي أنا جنا وحنا هاي قبلها الصوماليات ومدن وسير كجرب تاجن ديار إن كل الشقيان كل ينجيان هولها هي مسؤولية دوين وعدلك يدك وهيصو وحن رجينا يا شركة مانتا عاد نقص شرفتي أديكوا شقوين فربنا له ودوان حلك اللوريجي كي يمدي هولو قرن إن هذا النوت معه ميزانك يعريسك عادنا سارتي يقدرين تعادنا سوى كأجمع هذا علينا شركنا وشر هوانك الصوماليات أي كل فجريان دورك أي كجيران نبضينتا أبنجا يلا دجالك فكرتها جرعان حجرني مدى وهو يدو وتيرك قيسك وأضبحاتك بالشدة ومسكحة يا معلمك تببرها رنتها مجتمع الصوماليات وهو يرى الصوماليات وحكون دعي همي قم يدبها تفر بدن وجارسيسي إن أودي كرويد وحكب بحسن إن أهل جنتو عرورتو محي علودونتا مانتا محي كو قضي دونان محي كو قراع دونان اسكول بكوهل الدونان دوكسي مجيسن كريسا ابن هداد كغبحدو اد كورسو نقطو مهلي دونتا وحن يا ugu taaganahay hadaan nahay dumarka Soomaaliyeed dhibaato kasta iyo duruuf kasta oo aan ku noolnahay inaan garab istaagno dawladeena inaan taageerno dawladeena inaan korino dawladeena inaan ka difaacno cadawga dawladeena oo habeen iyo maalin aan shaqeyno oo aan ansaaxanin waxaan rajaynayaa hogaankaaga suuban halgankaaga iyo niyadsamadaada wanaagsan dadaalkaaga iyo kartidaada iyo aqoontaada iyo aqligaaga in maanta ummadda Soomaaliyeed marka la eego bar iyo ka badan waa haween haday istaagaan oo ay kula shaqeeyaan oo ay dawladnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u kacaan cadow meel ku gabado oo dambe oo Soomaaliya lama heli doono sida ay sheegtay agaasimaha dib u heshiisiinta iyo abniga ururka haweenka qaranka walaashay Abshiro Axmed Maalin waa naga daacad ciidamada ayaan garab istaagnaa oo wili garab taaganahay dawladnimada ayaa noo caruurta aan dalnay oo kale oo aan saxarka ka ilaalinaa waxaan u taaganahay dalkan sidoo adduunyada uga mid noqon lahaa oo nabad loogu noolaan lahaa gabdhuhu marka maanta intaas oo cudud mudana wasiir waxay u taagan tahay in ay la faguraan talooyin ka bixiyaan maskaxdooda tuujiyaan inaan xamar dhibaato dambe oo wiil nooga dhinto ama gabar nooga dhimato kuwa hadda ugu dambeeyay abshada ay ka hadlaysay oo urku taalada leh oo iyagoo saqiir dhibaato la soo gaarsiiyay iyagoo graduation ka sameeyay dugsiga sare gabadhii shalay lagu dilay ceelasha biyaha waxay nagu reebaysaa cawaaqib xumada caruurta aan u taaganahay banaanka ee aan shaaha u karinayno ee aan dhaxda u xiranay ee aan kaga bixinaynay wixii alla waxa soo helnay inay wax bartaan in markay soo graduate garaysay oo guuleysatay oo soo xirtay sanadusiyadkii dugsiga sare lagu dilo middi halowda loo geliyo waxay nagu abuuraysaa hadana hooyooyinka Soomaaliyeed urku taalo si kordhisa tii hore loo haysatay ee caruurteena ku dhacaysay ee walaalaheed ku dhacaysay ee ragana ku dhacaysay ee dabkana lagu shiday ee aan banaanka u naalo waxaan u baahanahay marka haddaan anagu kacno oo anagu istaagno
waxaan badbaadin karnaa biidni illaah ilaahayna waa nala jirayaa qarankan oo dhan ayaan badbaadin karnaa habeen iyo maalin gabdhaha Soomaaliyeed mudane wasiir waxaan u baahannahay xiriirka dawladda waxaan u baahannahay sirta cadowga meelan geyno waxaan u baahannahay in xoogga haweenka ay looga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed oo la siiyo doorka ay ku leeyihiin dalka hadday noqon lahayd dhinaca amniga hadday noqon lahayd dhinaca arrimaha bulshada iyo hadday noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha waxaan aragnaa dal mudane wasiir wada rag ah meel kasta go'aanka iyo talada ragga haysta meel kastana rag baabi'inaya oo dalka iyo dhibaatada iyo mushaakilka u horseedaya ummadeena caruurteena iyo horumarkeena iyo farxadeena ka soo horjeeda waxaan rajaynaynaa in wasiir aad arrintaas hoosta ka xariiqdo gabdhaha aad howlgeliso gabdhaha aad fursadaha siiso gabdhahana dharkayso weligood mushaar ma qaadan maalin ay shaqo ka maqnaadaanna ma jirto maalin walba ciidankay barbar socdaan maalin walba waxay ka shaqaynayaan nadaafadda oo waxay xaaqayaan wasaqda iyo qurunka caafimaad darrada mujtamaca u keenaysa maalin walba waa gaarhaye ka digtoon in galdaloolo laga helo qaranka Soomaaliyeed maalin walba waxay taageerayaan oo garab taagan yihiin dawladnimada oo ay u korinayaan sida ilmihii ay dhaleen oo kale maantana meesha ay Soomaaliya soo gaartay waxa soo gaarsiiyay gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed la'aantoodna ma dhacdeen inay Soomaaliya maanta heerkan ay soo jibaacdo ama ay soo jarto maylalka badan ee ay soo martay waxaan ognahay ilaa iyo hadda ciriiriga nolosha dhibaatada dayaca wuxuu dul saaran yahay hooyooyinka Soomaaliyeed umana qalmaan inay ku noolaadaan nolosha noocaasa oo aan bini aadanka u qalmin waxaan rajaynaynaa adigoo waaya araga adigoo hooyo ah adigoo wasiirad ah adigoo xildhibaanad ah adigoo aan ku rajaynayno inta noloshaada kaaga hartay inaad saa u taagnaato oo aad horseed u noqoto gabdhaha Soomaaliyeed haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxaan qabnaa in aan arrintan ayna noqonin mid lagu kala tago waad naga tegaysaa waxaad rabtaa inaad howlo kale oo qaran oo muhiim ah oo mawcidkeeda aad lahayd aad gasho laakiin anagu ma kala tegayno markaan soo dhamaynana waxaan kula wadaagi doonaa warbixinta iyo talada gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in wax weyn ay iska bedesho Soomaaliya sida ay tahay maanta waayo madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka xukuumadda oo dhan waxaa maanta loo jihaystay in la aslaaxiyo Soomaaliya oo nabad ah Soomaaliya oo heshiis ah Soomaaliya oo dunida heshiis la ah arrimahaasi annaga farxad bayna gelinaysaa laakiin doorka aan ku leenahay inuu cad yahay inaan ka qayb galno taladeeda iyo hoggaankeeda iyo waxqabadkeeda adiga ayaa wakiil nooga ah waxaan rajaynaynaa insha Allah taala horumar la taaban karo iyo itijaah la taaban karo iyo hoggaan la taaban karo iyo qorshe howleed la taaban karo inay gabdhaha Soomaaliyeed ku howlgalaan hoggaankaaga dartii way aragnimadaada dartood iyo jacaylka aad u qabto gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed darteed